cismaan cilmi xirsi waxa uu qiyaastii 1940kii ku dhashay magaalada Hargeysa uu ku barbaaray yaraantiisii quraanka iyo waxbarashada dugsiga hoose waxa uu ka bilaabay dugsiga Sheekh Baraawe ee magaalada Hargeysa 1950kii isla waqtiga uu tagay Qaahiro waxa uu ka howlgalay isla markaana uu shaqo ka bilaabay idaacaddii Qaahira laanteedii afka Soomaaliga waxa uu ka shaqaynayay idaacaddaas muddo gaaraysa 40 sano waxa uu shaqada ka bilaabay wariye idaacadeed halka markii dambe uu ka noqday madaxa laanta af Soomaaliga ee Radio Qaahira ilaahay u naxariistay cismaan cilmi xirsi oo cismaan laangale loo yaqaanay wuxuu ahaa wariye weyn oo la yaqaanay oo idaacaddii laanta afka Soomaaliga ee Sawtul Arab min al-Qaahira raggii ugu horreeyay ka howlgalay ayuu ahaa ilaahay u naxariistay nin wariye weyn buu ahaa cismaan cilmi waxa uu ku magac dheeraa cismaan laangare wuxuu ahaa nin bulshaawe ah qof aad u dabeecad fiican karti badan cismaan wuxuu ahaa nin dadka u gargaara oo deeqsiya cismaan wuxuu ahaa nin isagoo waagaan dhallinyaro ahaa aniga iyo ardayda kale intii ila dahayd wuu naga weynaa laakiin haddana nin dhallinyaro ahaa haddana wuxuu ahaa nin dhaqan odaytiinnimo leh oo odaya buu ahaa waxaa nin aad iyo aad bulshay u ah aad iyo aad u kaftan badan aad iyo aad maxaan ku dhahaa marna isagoo cadhaysanaadan arkay haddaan taariikh cismaan soo taabto cismaan wuxuu ahaa qof Soomaali oo dhan si uu aaminsan qof kastoo Soomaaliya oo waxbarasho u baahan caafimaad u baahan kuwi u baahan dalka wax dacwada masal ka yimaadaan odaygeega aqoonyahankeyga iyo ahaa cismaan wuxuu ahaa qof ku suntan halgankii hubaysnaa ee SNM ee dalka lagu xoreeyey waxa uu ka mid ahaa raggii abaabalka ugu jiray halganka ee wakhtigaas ku sugnaa Qaahira waxaan ahay dabaca Abdullah Xaaji Xasan waxaan ka mid ahaa 5 nin oo Masar laga afduubay 1988kii oo dil toogasho lagu xukumay adeer cismaan ifad badan buu gashay oo adduunku noo sheegay oo meel walba warkayga uu ka riday sidii loola badbaadin lahaa caalamku gaarsiiyey isagii intii waqtigaa kula nooleed magaalada Qaahira cismaan Allahu naxariisto waxaan uga mahadnaqaynaa raggeygii militariga waqtigaa la afduubay ee toogashada lagu xukumay inaan soo baxnay cismaan wuxuu ahaa dadkii ka qayb galay in ay dadkaasi la siiyo magangelyo runtii noloshayda maalin u baahna xaqiiqatan ayuu meel weyn garab istaagay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaa jannatu firdaws taala inuu ilaahay jalla wacala ka waraabiyo dadka isagoo ahaa runtii ummaddeena aad bay ugu yaraayeen wuxuu ahaa laa yarxame ayuu been laga sheegaynin qof dadkoo dhan u siman yihiin qof dadkoo dhan u siman yihiin waxaa qof qalbi fiican furfuran muu ahayn qof isla weyn muu ahayn qof isla weynida muu aqoon qof yar iyo qof weyn baa sidii ula kaftami jiray qabyaaladana muu aqoon Soomaalidu iskugu mid baahay cismaan wuxuu ahaa aabbihii ardayda aabbihii dhalinyarada aabbihii islaamihii dumarkii oo dhan single martyrs la sheegayo waxaan ka soo bilownay Qaahira waayo odayadii oo dhan intay halkaa dadkii la wada keenaa laga wada tegay kabacdina deeqo meel laga shaqaysanayay bay noqon weydo waa loo wada shaqo tegay runtii noloshayda maalin u baahna xaqiiqatan ayuu meel weyn garab istaagay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaa jannatu firdaws taala inuu ilaahay jalla wacala ka waraabiyo dadka isagoo ahaa runtii ummaddeena aad bay ugu yaraayeen isagoo dalkiisii maaragtay aan loo abaalcelinin waxyaalo fara badan ummadda u qabtay intii soo maraysay qof walba wax la qabanayo keliya hadday maanta hadday uu noolaan lahaa yani wax badan baa ayay la qaban lahayn laakiin maanta way naga hooseeyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu baryaa jannatu firdaws taala in ilaahay naarta ka xoreeyo jannada ka waraabiyo aakhiradiisana aakhir wanaagsan ilaahay jalla wacala inuu ka dhigo cismaan wuxuu ahaa laa yarxame ayuu been laga sheegaynin qof dadkoo dhan u siman yihiin qof dadkoo dhan u siman yihiin waxaa qof qalbi fiican furfuran muu ahayn qof isla weyn muu ahayn qof isla weynida muu aqoon qof yar iyo qof weyn baa sidii ula kaftami jiray qabyaaladana muu aqoon Soomaalidu iskugu mid baahay